wiilkan oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Shaarub fiidiyo ku baahay baraha bulshada ayuu digniin ugu diray wiil magaalada Hargeysa ku sugnaa oo sheegay inuu jacayl u qaaday fartuun balbalaarka. Cabdiqaadir waxa ku sugan yahay magaalada Burco oo dad badan u yaqaanaan gobolka Ragga. Waxa noo suurta gashay inaan ku booqano guriga uu ka degan yahay magaalada. waxaanu si adag u dhaliilay wiilka reer Hargeysa ee jacaylka u qaaday balbalaarka, isagoona carabka ku adkeeyay inuuna helayn balbalaarka balse isagu uu hanti u leeyahay, Burcana ku soo dhaweynayo in badanna uu baafinayay jacayl uu hayaana uu qarsanayay, balse markii uu maqlay wiil jacayl uu afka furtay. waraysi gaar ah oo na dhex maray aniga iyo Cabdiqaadir ayaa waxa u dhacay sidatan. halka xabaa ugu direeyaa ilmi yaray Hargeysa ka soo ciiyay ee laha fartuun balbalaarkan jecelahay ayar laxba laga yiri nin baad jacaylkiisa gabadhiisa leedahay waan jecelahay ma helaysid baa ku ma helaysid fartuun balbalaarka aniga jecel ana isku balbalaarnay sida kimista nin aniga hayn bas ku balbalaarnay waxaad adigu waxaad sheegtay gurigaad ku sharaxatay waxaad tirina tahay wadnaha bidix aniga waan ku seexdaa waan ku soo toosaa way igu dhaxmeeranaysaa waa oxygen ku noolay fartuun balbalaarka ma helaysid adarha ku riyoon wata way ilaa inta in lag baad jeclay Cabdiqaadir fanaanada fartuun balbalaarka waxaan jeclaa ilaa markii Xasan Toob su'aalka u galiyay waa markii ugu horeysaan arko fartuun balbalaarka jira inna caadi ay leedahay waxaana ku jeclaa jira inna caadi ay leedahay quruxduna ma aha wajiga waa jirka gabadha hadii jir leedahay wajiga si kasta wuxuu yahay taayir gurilaha oo ay kaato dhidar oo ay kaato waraba oo ay kaato hadii jir leedahay way soconaysaa de wajiga maraba iska saarayba marka fartuun balbalaarka inna caadi ma waa macaan way fariinta marka xaqana aad uga dirayso hadii codkaagaas uu ba gaadhaba maxay tahay Cabdiqaadir fartuun balbalaarka waxa leeyahay baby oo ku jecelahay ana dadka kugu jecel noloshaydaad indhahaygu haddayna social media ka arag habeenkii ma seexdo maalintii ma joogo karo casarka waxa kuli casiriyuhu bay dhadhami maayay shaa casiriya haddana ku arag habeenkii ma seexdo ma gamaba haddaanan heesada daawan ama sawir aad leedahay Facebook ka arag marka waxa leeyahay baby haddaad maqlayso ama muuqaalkaygu hadduu ku soo gaaro nimanka aad leedahay please baby nimanka aad leeyahay iga daa Xasan oo ka hadhay ninka yar xun sida xun xiirana mooto la saartay iyo kan kale leeyahay kan gurigaad ku leeyayso iga daa baby iga daa dhibis waxa doonaysaa inaan xamar ugu imaado nimanka laay iga daa baby ayana dhibkii naftaydana xiyaalan iga daa baby fariinta kale aan diray waxa weey baby gobolka Togdheer waa gobol laga taageero waana gobolka waa hooyada fanka abwaan ma jiro fanaan ma jiro haduu jirana waa gobolka soo baxo waana gobolka laga soo saaro nin fanaan noqday ma jiro haduu jirana waa fanaan gobolka Togdheer laga soo saaro reer Burco yar iyo weyn waa wada abwaan mid ka dhaca male had raawad maqal jirtay gabiguba waxay reer Burco waa wada fanaan fankana iyaga ansixiyo fanana ay reer Burco ansixina ma socdo mana soo baxo marka waxa leeyahay aniga ma 10 hayso xitaa haya marka nagu soo booqo oo gobol laga taageero wallahi sida lagu taageero cawaala aadan xitaa loogama taageero Burco sida laga taageero cawaala aadan baa looga taageertaa fadan nagu soo booqo showyadan ku qabanayna oo ku qabanaya ana xitaa ku qabanaya wada shaar gobolka Togdheer waa laga yaqaan caab baan ka ana xitaa 10 hayso diyaari ku dhiibay. waqti kooban ayaa ka soo wareegay markii Cabdikariin oo ku sugan magaalada Hargeysa qolkiisa ku sharaxay magaca balbalaarka sheegay inuu jecel yahay arrintaasi oo saameyn ku keentay baraha bulshada. balbalaarka waxa tahay qof xushmad leh aan jecelahay respect weyn baan ku hayaa I love you Hargeysana oo ku soo dhaweynaa runtii 24 hours waxaan taagnaa airportka. fanaanada balbalaarka ayaa ilaa hadda aan jawaab ka bixin codsiyadaas jacayl iyo hirdanka u dhaxeeya dhalinyaradaas jacaylka u qaaday. Sikriye Ilyas Jakarta, Burco.